waayahay daawada soo dhawow waxaan rabaa inaan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale xogtii ugu dambeysay ee safarka madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee lagu wado inuu ku gaaro magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia qorshaha safarka madaxweynaha iyo waxa keenay in uu safar ku gaaro dalka Ethiopia warbixintaas ayaan jecelahay inaan kula wadaago soo dhawow daawada haddii ay tahay markii ugu horeysay muuqaal ku soo gaara like saar siina share garay si saaxiibada kale ugu gaaro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inuu safar ku gaaro magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia wararka ayaana sheegaya in uu casuumaad rasmi ah halkaasi ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed safarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in uu qaato muddo hal maalin ah oo ku joogayo gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa isagoona halkaasi kulamo xasaasi ah kula qaadan doono dhigiisa dalka Ethiopia Abiy Ahmed sidoo kale safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wararka sheegayaan in uu ku sii mari doono dalka Uganda oo halkaasi kula kulmi doono madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ila wareeti xilkasa ayaa warbaahinta Somaliland TV u sheegay in safarka madaxweynaha Soomaaliya isku mari doono dalalka Uganda iyo Ethiopia isla markaana safarkiisu uu qaadan doono ku dhawaad 2 maalmood wararka ayaana sheegaya in safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gaarayo dalka Ethiopia ay ujeedkiisu yahay si aan baqaadida wada hadalada labada dawladood ee Ethiopia iyo Soomaaliya si loo dhameystiro heshiiskii magaalada Ankara ee dalka Turkiga ay ku gaareen ama ay ku saxiixdeen labada dawladood ee Soomaaliya iyo Ethiopia wararka ayaa intaas ku daraya in ay suurtagal tahay in labada dawladood ay kala saxiixdaan heshiis cusub oo ku aadan in Soomaaliya ay marinbiyoodka badda Soomaaliyeed ay ka kirin doonto dalka Ethiopia maadaama horey Soomaaliya ay u ogolaatay in Ethiopia ay siin doonto marinbiyood iyadoo si toos ah ay ula macaamilayso dawladda dhexe ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa horey ugu carootay heshiis dawladda Ethiopia ee horey sanadkii tagay ee 2024 bilowgiisii ay la gashay maamulka Somaliland oo madaxweyne ka ahaa markaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi heshiiskaasi ayaan ku qotamay in Somaliland ay Ethiopia ka kireen doonto marinbiyoodka Soomaaliya muddo 50 sano ah Ethiopia taa bedelkeedana Somaliland ay siin doonto aqoonsi ay ka madax banaan tahay in Soomaaliya inteeda kale markaasi dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxdeeda ayaa si weyn ugu soo horjeestay heshiiskii labada dhinac markaasi ay gaareen khilaaf muddo soo socday ayaa ugu dambeyntii dhamaadkii sanadkii 2024 dawladda Turkiga gaar ahaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu soo gabagabeeyay khilaafkii labada dawladood sidoo kale halkaasi kulankii sidoo kale wada hadalkii ugu horeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia ku yeesheen labada dawladood ee uu kala hogaaminayeen Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay halkaasi heshiis ay ku gaareen oo lagu soo afjarayo khilaafka labada dhinac dhinaca kale hadalheen xoogan ayaa ka dhalatay booqashada ama safarka la filayo in madaxweynaha Soomaaliya saacadaha soo socda uu ku gaaro gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa maadaama ay ku soo aaday xilli xasaasi ah horeyna madaxweynaha uu mowqif adag ugu qaatay dalka Ethiopia ee arinta la xiriirta in khilaafka labada dhinac markaasi ay jirtay dawladda Soomaaliya iyo madaxdeeda ayaa markii hore dawladda Ethiopia mowqif adag ka qaatay walibana markaasi shacabka Soomaaliyeed u sheegay inay yihiin cadow duulaan ku ah madax banaanida iyo sidoo kale midnimada dalka Soomaaliya balse lama yaqaan waxa isbedelka hadda keenay in madaxda qaranka ay safar degdeg ah ama safar u ambaxo madaxweynaha Soomaaliya xiligan maadaama uu horey u jiray khilaaf xoogan inkastoo heshiis laga gaaray safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aadaya iyadoo horey magaalada Addis Ababa booqasho ay ku tageen wafdi ka socda dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Sanbalulshay oo ay halkaasi ku gaareen bilo ka hor walibana halkaas kula kulmay wafuud iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dalka Ethiopia kuwaas oo wada hadallo la yeeshay dawladda federaalka dalka Ethiopia haddaba daawada sidee u aragtaa booqashada maanta lagu wado in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gaaro magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia halkaas uu martiqaad ama sidoo kale casuumaad uu ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ay halkaasi kula kulmi doono wixii aragtaa faalada hoose ee commentiga ku bixi wixii ra'yi ah waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka hadduu ku soo gaaro like saar sina share garay si saaxiibada kale u gaaro